بسم الله الرحمن الرحيم كل ونكسنا قيارتا نلا سعوتي دلكين بميل كستو جوجتان ولحي لباتن كبشن نوفمبر سنة كاللباكون شن إي لباتن تبنتن قضبوا وينو حيسالة أيان إذن كوغو هيا وحنا كامنا نظام كإسرائيل أيا مركي وغوه الرئيس قرتي إن دولة إيران أي هور مرينيسو جنتاله هيدا إسلامركانا أي أبورتي كيد فربادان و جنتاله وكمدي هاي kan gaaraya in ka badan 2,000 oo kiiloomitir ee Khaybar isla markaana kamid ahaa gantaalihii Israa'iil weerarkeedii Iiraan ay u adeegsatay haddaba warbixintan oo qaar kamid ah warbaahintu ay tabinayaan ayaan barnaamijka idin ku faaqidi doonaa xilli laga baqanayo walaac hor leh oo ku saabsan dagaal gobolka bariga dhexe mar kale ka dhaca wararka ka imaanaya dalka Mareykankuna waxay sheegayaan in Trump iyo Mohammed bin Salman ay si weyn ugu dhex dagaalameen xagga afka qolkii lagu qaabilay Mohammed bin Salman kadib markii Sacuudiga uu ka biyadiiday dalab ay hor dhigtay dowladda Mareykanka haddaba dalabkaasi muxuu yahay go'aanka adag ee Mohammed bin Salman uu qaatana maxaa lagu tilmaami karayaa warbixin ayaan idinkaga hayaa oo aan barnaamijka ku faaqidaya khiyaaray inta waxa raaci doona oo aan idin sheegi doonaa Iiraan ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay ogoshahay wada hadal ay la gasho dowladda Mareykanka goordhow ayuu warbaahinta u sheegay Cali Laarajani oo ah ninka ugu sareeya amniga qaranka ee dalkaasi Iiraan ahna saaxiibka gaarka ah ee Ayatollah Ali Khamenei oo ah ragga ugu dambeeya ee fura isla markaana xira gundimaha dowladda Iiraan ee xagga siyaasadda iyo amniga dowladda Imaaraadka Carabtana waxa ay si weyn uga hadashay oo ay ka jawaabtay inay hub ku daabusho wadanka Suudaan Anwar Gargash oo ah la taliyaha sare ee madaxweynaha wadankaasi Imaaraadka ayaa ku dhawaaqay in duulimaadyada kala duwan oo ay geynayeen wadanka Suudaan ay ka dhigan tahay inay ahaa gargaar kala duwan oo dadkaasi mucaawin ahaan loo siinayay khiyaartayna la socotay qodobadaas ayaan ku faaqidaya barnaamijkan waxaan ahay Cabdicasiis Barrow meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada ma ogtahay in dhakhtar Shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar dowladda Iiraan ayaa la soo baxday taag cusub oo dhinaca awoodda gantaalaha taas oo walaac gelisay nidaamyo kala duwan oo ay ka mid tahay Israa'iil hay'adda warbaahinta Israa'iil gaar ahaan dhinaca ka shaqeysa cilmi baarista amniga ayaa waxa ay tilmaantay in marka la fiiriyo dowladda Tehran maalmihii ugu dambeysay ay kor u waday kor u qaadista arrimaha gantaalaha gaar ahaan gantaalka loo yaqaan Khaybar kaas oo kamid ah kuwa ugu ballaaran oo adeegsatay dagaaladii ay la gashay nidaamkaasi Israa'iil dowladda Iiraan waxay ku baaqday dowladdaasi warbaahintan iyo waliba warbixintan cilmi baaris ay soo saartay in loo baahan yahay in laga hortago tilaabooyinkan oo qalqal gelinaya nabadgelyada gobolka bariga dhexe waxaa soo baxay warbixin cusub oo ay diyaarisay mareegta cilmi baarista ammaanka qaranka Israa'iil taas oo lagu sheegay in Iiraan ay haysato kayd ballaaran oo gantaalo hormarsan gaar ahaan kuwa Ruuska ah kuwaasi oo lagu tilmaamay inay yihiin halis istiraatiiji ah oo cusub kadib markii ugu horeysay ee la ogaaday Iiraan in ay gantaalaheeda meel fog gaari karaan waxay ahayd weerarkii ay ka bixisay hogaamiyihii Falastiiniga ahaa ee lagu dilay wadankeeda kaasi oo 14 Abriil sanadkii 2024 ay Iiraan adeegsatay gantaalihii ugu horeeyay gantaalahaasi waxaa soo baxay inay waxyeello gaarsiiyeen Israa'iil balse laga qariyay indhaha warbaahinta oo si weyn loo xadiday xogta gantaalahaasi qasaarihii ka dhashay in la baahiyo warbixintan waxay sheegtay in Iiraan inkasta oo aysan wali adeegsan hubkeedii ugu awoodda badnaa haddana ay leedahay 7 nooc oo waaweyn oo gantaalaha hormarsan ah kuwaasi oo gaaraya masaafooyin ilaa iyo 2,000 iyo dheeraad kiiloomitir sida warbixinta Israa'iil ay baahiyeen ay ku tilmaameen masaafada ugu dheer ay gaari karaan baa leeyahay gantaalaha dowladda Iiraan hadda gacanteeda ku jira waxay leeyihiin awood sare oo ay wax ku burburin karaan kartida ay ku duuli karaanna waxa ay tahay mid aad u sareysa oo xitaa waxa ku adag raadarada qaar nidaamka Israa'iil ee difaaca hawada in ay ka hortagaan
waxay awood u leeyihiin inay qaadaan madaxyo culus xilliyada lagu jira dagaalka oo halkaasi ay qaraxyo ka geysan karaan guur ahaanba gantaaladaasi sida wararku ay tilmaamayaan. gantaalka sida gaarka indhaha loogu hayo waa kan la yiraahdo Khaybar oo ah mid weyn oo warbixinta cilmi baaristan ku soo baxday lagu sheegay waa mid ka mid ah kuwa ugu halista badan ee gantaalaha Tahraan ay haysato ayaa lagu yiri. warbixintu waxay xustay in gantaalka Khaybar oo ka tirsan nidaamka gantaalada ugu casrisan ee gacanta ugu jira dowladda Iiraan uu yahay mid aan xilligan ciyaar gelin oo aan lagu kaftami karin waxyeelana gaarsiin karaya Israa'iil iyo waliba quwadaha ka soo horjeeda Iiraan ee bariga dhexe. masaafadiisu waxay gaaraysaa 2000 oo kiiloomitir ayaa la yiri waxaana uu bartilmaameedsan karaa dhul fog oo halistiisa leh iyadoo tani ay walaac weyn abuuri karayso. maxay yihiin gantaaladan cruise-ka ah sideese lagu yiri cilmi baarista? warbixintu waxay leedahay gantaalada cruise-ka ah waa kuwa madaxyo kala duwan leh oo lakabyo is saaran ah gaari kara masaafo dheer duuli kara meel fog isla markaana leh awood aad u sarreysa oo ay kaga gamba karaan sida lagu yiri cilmi baaristan raadeerada gacanta Israa'iil hadda ku jira. waxaa laga tuuri karaa badda oo maraakiibta dushooda ayaa laga tuuri karaa halka dhinaca kalena laga soo tuuri karo dhinaca dhulka oo laga hagi karo meelo fog baa lagu yiri warbixintan. daraasadu waxay sidoo kale tilmaamaysaa in Iiraan ay hormarisay gantaalkan isla markaana ay bilowday hindisihiisii sanadkii 1980 iyadoo markaa iibsatay Shiinaha kadibna soo saartay noocyo ay iyadu leedahay waxaana kamid ah Nasir, Noor iyo waliba Khaybar iyo kuwa kale kuwaasi oo hadda masaafadoodu aad looga walaacayo meesha ay gaarsiisan yihiin. arrimahan marka la isku soo aadiyo waxay imanayaan xilli walaac badan laga muujinayo xaaladda gobolka bariga dhexe isla markaana dowladda waa Iiraan ay dareemayso cadaadis dheer oo saaran oo markasta ay suuragal tahay in tallaabooyin military laga qaado. hasaatee qubarada arrimahan falanqeynaya iyo daraasadan waxay leeyihiin waxay ku soo aadaysaa xilli Israa'iil ay doonayso marmarsiyo cusub oo ku aadan wadankaasi inay ka fuliso weerar kale oo xagga dagaalka ah. dhaxal sugaha wadanka boqortooyada Sacuudiga ahna hogaamiyaha golaha wasiirada ee wadankaasi Mohammed bin Salman iyo madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu soo waramayaa in ay si weyn ugu kala fogaadeen qolkii wada hadalka gaarka ahaa intii Mohammed bin Salman uu booqashada ku joogay wadankaasi Mareykanka. warbaahinta Israa'iil ayaa tabinaysa in Mohammed bin Salman uu ka goos adeegay dalab dowladda Mareykanku ay hor dhigtay oo dhinaca Israa'iil ku saabsanaa isla markaana Sacuudiga uu soo jeediyay in marka hore ay muhiim tahay dalabaadka Sacuudiga wadamada Islaamka iyo Carabta in la meel mariyo. sida uu ku waramay channelka 12aad ee Israa'iil habeenkii Salaasada kulankii xasaasiga ahaa ee ka dhacay aqalka cad ee Washington waxa uu horseeday muran iyo waliba xanaaq qarsoon oo u dhaxeeyay Mohammed bin Salman dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga iyo Donald Trump. inkasta oo muuqaalka kaamiraduhu ay muujiyeen dhoola cadeyn iyo isqadarin labadan hogaamiye u dhaxaysa haddana wax kasta oo dhacaya sidaasi ma ahayn ayaa lagu yiri warbixin gaar ah oo telefishinkaasi baahiyay. warbaahintu waxa ay soo xigatay mas'uul Mareykan ah oo si weyn loo yaqaano hasaatee magaciisa la qariyay kaas oo sheegay in Trump uu si weyn ugu cadaadiyay bin Salman in uu ku biiro heshiiska Abraham Accords ee Israa'iil diblomaasiyadeeda ay ku soo celiyaan. laakiin Mohammed bin Salman ayaa ku jawaabay hadal dhabanahays iyo dhakafaar ku noqday baa la yiri madaxweynaha wadankaasi Mareykanka Donald Trump. ra'yiga dadweynaha Sacuudiga aad buu uga soo horjeedaa Israa'iil sidaa daraadeed ma suura galayso in Sacuudiga uu hadda ku biiro heshiisyadaasi ayaa lagu yiri warbixintan. arrintan ayaa la sheegay in Trump ay ku abuurtay naxdin iyo xanaaq iyadoo wada hadallada qolka xiran uu noqday mid adag oo xiiso leh inkasta oo labada hogaamiye ay dibadda ku muujiyeen baa la yiri kalgacal iyo safgarad kaas oo inta badan u muuqanayay mid dhalanteeda. haddaba waxaa jirta muran ku saabsan madax banaanida iyo turxaan siyaasadeed oo Carabtu ay wajahayaan taasi waa dooda ugu badan ee Mohammed bin Salman uu miiska saartay.
warbixintu waxay sheegtay in uu arkay inuu Trump u arkay kulanka fursad muhiim ah oo lagu gaari karo heshiisyo taariikhi ah Sacuudigana lagu cadaadin karo kaasi uu ka filayay Mohammed bin Salman inuu sameeyo xiriir rasmi ah oo Israa'iil ah dhinaca kale mas'uul Mareykan ah oo magaciisa qariya waxa uu yiri wadahadalku waxa uu ahaa mid aad u sareeyay waa ka kana Trumpna aad buu uga niyad jabay hadalladii Mohammed bin Salman uu ku dhawaaqay ee naxdinta lahaa ayuu leeyahay mas'uulkaasi magaciisa qarinaya arrintan waxa loo badinayaa in hubka diyaaradda F-35 in hoos loo dhigo ay ahayd sababta ugu weyn sida warbixintan ay tilmaamaysaa inta lagu guda jiro kulanka Trump waxa uu ballan qaaday in Sacuudiga uu siin doono diyaaradda dagaalka ee F-35 mid la eg heerka Israa'iil kuwa ciidamadeeda cirku ay ku duulaan balse maalintii xigtay wasiirka amuraha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa telefoon kula hadlay Netanyahu kuna xaqiijiyay in Sacuudiga uu heli doono nooc xadidan oo aan dhaawici karin awoodda Israa'iil Mareykanku waxa uu ku celiyay ballanqaadkiisa ilaalinta awoodda military ee nidaamka Israa'iil inaan xilligan wax gorgortana la gelin karin samarkaana dowladda Washington ay ku dadaalayso sida arrimahaasi loo hirgelin lahaa ayaa lagu yiri warkan sida gaarka u soo baxay haddii aan mar kale dib ugu laabto dalka Iran ninka la yiraahdo Ali Larijani oo ah ninka ugu sareeya amniga qaranka dowladda Iran ayaa war uu soo saaray waxa uu ku yiri waxaan diyaar u nahay wadahadal dhaba oo lala yeesho Mareykanka Araqchi ayaa sidoo kale u anbabaxay magaalada Paris ee caasimadda waddanka Faransiiska Ali Larijani xogayaha golaha sare ee amniga qaranka ee dalka Iran ayaa maanta sheegay in Iran ay diyaar u tahay in ay guda gasho wadahadal dhaba oo lala yeesho Mareykanka balse aysan aqbalayn muuqaal oo natiijadiisa hore loo sii diyaariyay iyo foodo dalka Iran saameyn karaysa mustaqbalka Larijani ayaa qoraal uu ku daabacay barta X ee hore loo oran jiray Twitter waxa uu ku yiri dhaliilaha habdhaqanka diblomaasiyadeed ee Mareykanka isagoo sheegay in wax badan aan la aqbali karin Mareykanku waxa uu isku dayayaa in uu muujiyo inuu yahay xarunta dhexe ee isbeddelka adduunka taasi oo ah nooc ka mid ah khiyaanada nafsada uu ku sameynayo dowladda waaweyn kulanka Larijani ee Pakistan ayaa waxa uu yahay mid kale oo calaamad su'aal gelinaya mustaqbalka gobolka bariga dhexe xilli xiisadu ay sii xoogaysanayso inta uu ku sugnaa Pakistan Larijani waxa uu la kulmay taliyaha ciidamada militariga ee waddankaasi Pakistan General Asim Munir waxayna ka wada hadleen iskaashiga labada dhinac Iran iyo Pakistan amniga awoodda gobolka iyo xaaladda siyaasadda ee isbedelada lagu xoojinayo wada shaqaynta amniga wakaaladda wararka Tasnim ee Iran ayaa sheegtay Pakistan waxa ay leedahay muhiimad istiraatiijiyadeed oo ku aadan amniga gobolka iskaashigeeduna waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraya ka hortagga qataraha wadajirka ah iyo waliba cadowga wadajirka ah ee labadan dal ay wada leeyihiin General Munir ayaa dhankiisa bogaadiyay heerka iskaashiga labada dal isagoo sheegay in Pakistan ay weligeed taageeri doonto nabadda iyo xasiloonida gobolka Araqchi ayaa u socda Paris dhinaca kale wasiirka amuraha dibadda Iran Abbas Araqchi ayaa maanta u duulay magaalada Paris isagoo halkaas kula kulmi doona dhigiisa waddanka Faransiiska sida ay sheegtay wakaaladda wararka ama warbaahinta ISNA Araqchi waxa uu Paris ugu dhaqaaqay baa layiri kadib markii uu ka qayb galo shirka sanadlaha ah ee heshiiska mamnuucaya hubka kiimikada ah ee lagu qabtay magaalada The Hague ee dalkaasi Holland isla wararka sii soconaya haddii aan fiiriyana dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ka gelgelatay mid ka mid ah dhaleecayn diblomaasiyadeed oo waayadii ugu dambeysay ay wajahaysay iyo fadeexooyin dagaal oo lagu geystay xasuuq ka dhana aadanaha Anwar Gargash oo ah ninka la taliyaha u ah Mohammed bin Said waa madaxweynaha dowladda Imaaraadka iyo amiirka waddankaasi waxa uu leeyahay dowladdeenu sida loo eedeynayo wax badan uma jiraan isagoo la hadlaya telefishinka reer Mareykan ee CNN Imaaraadku waxa uu ahaa buu yiri mid ka mid ah kuwa ugu cad mowqifkiisa mana aanu u dirin buu yiri waxba dhinacyada ku loolamaya Suudaan tan iyo bilowgii dagaalka waxa uu sheegay 162 duulimaad oo dalkiisa uu ka sameeyay
diyaaradaha u soconaya waddanka Suudaan in dhammaantood ay sideen gargaar bini'aadanimo saacatee aysan ku lug yeelan wax dagaal ah. Imaaraadka ayaa wajahaya fadeexooyin waaweyn iyadoo la sheegay in calooshood shaqaystayaal Colombian uu ku daabulayo waddankaasi isla markaana uu garab siinayo kooxda RSF ee ka fallaagooday qaranka waddankaasi Suudaan. hase haatee fadeexadu waxay sii korortay markii Al-Fashir oo xarun u ah gobolka Darfur ay ka dhaceen tacadiyo iyo dhibaatooyin aadane oo aad u ballaaran. khiyaartay nala socotay tabinta qaybtan inta ayaan ku gabagabaynaya. waa Cabdicasiis Barrow leh. subscribe saara YouTube-ka haddii aad dhinaca Facebook nagala socotana sharaf ayay noo tahay inaad nagu soo biirtaan. waad mahadsantiin. Ramas Hotel and Restaurant waxa uu leeyahay adeeg dhameystiran waxaana ku diyaara qolol jiif oo heer sareeya holka aroosyada iyo shirarka maqaayad furan 24 saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan internet xawaare sare leh wiish iyo amni joogta Ramas Hotel waa doorashadaada ugu fiican waxaana uu ku yaalaa Bakaaraha agagaarka isgoyska Carweydka